qoyska iyo reerka maxaa baabi'iyey aan isweydiino waa zinadii uu maalinkii galay uu ku farxay uu mar walba ku soo ceshanayay ayaa way ka daba timid haddaad adigu ilowday ilaahay ma iloobi ilaahay ma iloobi nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa daharat almacaasi fii ummatii macaasidu markay ummaddayda ay ku soo daahirto ay ku soo baxdo soo muuqato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku caam yeelaa gebigood cadaab min cindih cadaab agtiisa ka ahaaday ayuu ilaahay subxaanahu wa tacala ku soo marka ay musiibadu soo degayso waa markaad aragtid fasaadkii oo soo daahiray xumaantii oo la muujisanayo dibadda la muujisanayo ogow markaasi ilaahay wuu cadhoon ilaahay hadduu cadhoodana oy cadhada ilaahay ay soo degto kana wanaagsan kana sheekha kana ma jirto gebi aakhira la kala soocaya asxaabtiiba waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allahi ama fiihim yowmaidin unaasun saalixuun maalinka miyayna dad wanaagsan ayna ku dhex sugnayn maalinku ilaahay cadaabka uu ku soo dejinayo ay macaasida ayna iska qabanayn dad wanaagsan miyayna ku dhex jirin nebigu waxa uu yidhi balaa haa way ku dhex jiraan dad wanaagsan markaasi asxaabtii waxayna kayfa yusnac biulaa'ik kuwa maxaa la gaarsiin oo laga yeeli nebigu waxa uu yidhi yusiibahum maa asaaba annaas waxaa dadka ku dhacay ayaa iyakana ku dhici uma yasiruuna ilaa makfiratin min allahi waridwaan kadibna raalli ahaanta ilaahay iyo jannadiis ayay geli doonaan ilmaha yar muxuu dembi uu sameeyey odaygaasi muxuu dembi sameeyey waa dembigii odaygaa waxaa loo qabtay inanka dembigii uu sameeyey ayaa loo qabanaya aakhiro waa laka bixi janno iyo wanaag iyo khayr buu ilmahaasi gaadhi laakiin adduunka musiibada iyo dembigaa soo degay ayaa lagu ciqaabayaa ayuha alikhwa nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu noo sheegay waxa uu yidhi maa daharat alfaaxishatu fii qowm zinadu qoomku ma soo daahirto oo ma muujistaan xataa yuclinuu biha ma muujistaan zino qoom zinadii ayaa meela loo sameyn video lagu daawado hablihii iyo inamadiiba isla geli xumaantii baa la muujisan meelo lagu daawado ayaa loo sameyn dadkii zinadii bay daahirsanayaan buri nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markay muujistaan waxuu ilaahay ku sallidi cuduro aan jirayn lam takun fii aslaafihim dadkii ka horeeyey aan ku dhicin ummadii naga horeeyey nebi nuux qoomkiisii iyo caad iyo hamuud iyo aydhis iyo siidaa iyo ma jirayeen ma jirin waa zinadii oo la daahirsaday iminka siidaa baa dhacay jabti baa dhacday hablihii baa la kufsaday meel walba xumaan iyo fasaad ogow weligaaba iswalwaal adigu weligaaba ardada isku qaadqaad ilaahay waa kuu kaadinayaa ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga waa intaasu ka soo ii soo noqdaa waa intaasu ka toobad keenaa laakiin markaad xumaanta aad ku sii socotid ilaahay wuu ku qaban hadduu ku qabtana ilaahay kuu naxariisani maayo qiso dhaba waan u taagnaa waan u joogi anigu dad badanna waxaa laga yaabaa meesha fadhiya inay garanayaan inan baa loo tegay ducaaddaa u tagtay waxay ku yidhaahdeen ilaahay ka cabso diintuu caayaa ilaahay buu caayaa salaadda ma tukado diintu waxa uu yidhaahdaa diintu xaq ma aha saasuu odhan jiray ducaad baa u tagay waxay yidhaahdeen war ilaahay ka cabso ilaahay u toobadkeen waxa uu yidhi meeshay fadhiyaan waxa uu yidhi dhegaysta waxaad ilaahay baad ugu cabsiinaysaan iyo cadaabkiisa miyaa ilaahiina waxaa ku sameeya haddii uu imaqlayo waka aan caaye waxa iga qaada buu yidhi wallaahi alcadiim waa xaqiiqa waan u jooga anigu waa la argagaxay waa laga baxay meesha musiiba soo socotaa la yidhi inaga saara bili ma soo wareegin wuu iska qoslayey wuu iska ciyaarayey
baabuurkiisii buu ka hayst agsidaa buu galay meel kale rabbi kama dilin laftaa dhabarka uma la kala jebiyey insaankan waa daciif faryarada haddii la kala jebiyey maanta oo dhan insaanku uu cabaadi laftaa dhabarku ilaahay kala jebiyey qac waa la qaaday yurubtaa la geeyey waa la soo daweeyey laakiin baaradiisii dabcan dhinac baa baktiyey ma kici karayo waa la keenay waddankaa la keenay waxaa la keenay isaga oon qacmaha qaadi karayn lugahana aan qaadi karayn midna aan qaadi karayn farihiis ayaa la keenay waan u tagnay waan u naseexaynay waxaa laga yaabay inuu toobad keeno wuu hadlayaa laakiin ogow mar kaluu ilaahay caaye ilaahay baa iga sareeya qacmihiisa iyo lugihiisaasiba way urayaan lama feliisan karaysid matag waad matagi way urayaan dawooyin baa yurubta laga soo siiyey u mariyaa habeenkii markuu seexdo wax alla waxa baraanbar iyo jiir iyo jinac iyo maxaanku wax alla waxa jaarka oo dhan meelahaas oo dhan baa ku soo urura xayawaan oo dhan markaasaa qacmihiisan iyo lugaha ma dareemaya isagu waa la cunaa subaxdii markuu toosan buu arkayaa intan oo la cunay lugihiisii oo la cunay wuu dhawaaqayaa saasuu u fadhiyaa waa lafihii waxay soo saarayaan lafihii bay soo saarayaan subxaan allah sidaasuu u sugnaa wuu fadhiyaa bes waa la fadhiisiiyaa waa la qaadaa dhaqaaq kale male cuntada afkaa loogu ridaa biyaha waa la waraabiyaa saasuu u fadhiyaa labadii bari uu ku fadhiyey ilaahay wuxuu ka soo saaray laba saafuuro waaweyn dhulax ayaa midoo laga soo saaray calooshaa loo fadhiisiiyey subaxdii walba dhakhtarka u yimaada waxbaa lagu dhaadhiciyaa waa laga soo sifeeyaa intaasay la leegin daloolku waa weyni uma fadhiisan karayo caloosha u jeefaa qurmuunka ka baxaya xayawaanka jidhkiisa ku soo ururaya silica uu ku nool yahay waan u tagnay isagoo sidaa ku sugan muxuu daawanayaa filmaan xun oo anshax xun buu daawanaya caloosha u jeefaa iirooda buu leeyahay iiroo filimka ajab yacni waxa weeyaan waa xaaladtii ugu dambaysay ayuu ku sugnaa silic cuntadii kama dhaadhici karayso wuxuu sidaa uu ku sugnaadaba markii dambe hooyadii uu beryi jiray dadkii qaraabadiisa way ka tegeen gabadhi guriga uma shaqayso gabadhii guriga ka shaqaynaysa way ka tagtay waa la tagayaa bay tiri guriga oo dhan baa uraya hooyadii baa ku soo hadhay xataa walaalkii uu ka tegey xataa walaalkii uu ka tegey wuxuu beryi jiray qofka u yimaada walaal iga nax maxaan kuu qabtaa idaldal idil nafta iga qaat inaan dhinto ayaa ii dhaanta noloshana ku noolahay xaaladdaasuu ku noola ayuha alikhwa sidii isaga oo ku nool buu dhintay maxaad u malayn ilaahay cadhadiisu way daranta waxaa dhacay waa qisa xaqiiqiya waxay ka dhacday sacuudiga ayay ka dhacday meesha faysaliya la yidhaahdo riyaad ku taala ayay ka dhacday qisadaasi waa haweeney meesha faysaliya la yidhaahdo waa riyaad waa meel aad u qurux badan qalab qaaliya lagu iibiyaa inamada iyo hablaha ayaa isla soo doonta oo meeshaa yimaada